بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دواada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Rooblo oo u diray fariin madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxii ololaha doorashada farmaajo sanadkii 2017 iyo dib loo doortay iyo qaar ka mid ah eedeymo kala duwan loo jeedinayo waqtiga kan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo gaaray magaalada Dhuusamareeb maxaa keenay inay halkaasi ay gaaraan warka janaalkeena xogta dalka ayaa daawadayaal ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan haddii rabbi qadaro daawadayaal haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garay commentigaagana waa muhiim aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya رئيس الوزراء روبلي ayaa fariin u diray madaxda maamul goboleedyada dalka kadib markii doorasho ay ka dhacday Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa war uu soo saaray waxa uu si gaar ah ugu diray dhammaanba madaxda maamul goboleedyada qaabka ay waqtiga kan ugu diyaar garoowayaan inay dedejiyaan doorashada Soomaaliya ugu horeyn ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu hambaliyo u diray ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Biixi Iimaan Cige oo ku soo baxay labadii kursi ee la qabtay doorashadooda Roble ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in la bilaabo doorashada golaha shacabka isagoona xubnaha la doortay u rajeeyay inuu alla uu la garab galo mas'uuliyadan sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa fariin u diray dhammaanba madaxda maamul goboleedyada waxaana uu ka dalbaday in ay gudagalaan doorashada golaha shacabka waxaana sidoo kale ra'iisul wasaare Roble uu sheegay in waqtiga looga baahan yahay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada dalka inay dedejiyaan doorashada maadaama waqtiga la gudagalay waxaana sidoo kale uu sheegay in uu aad mar waliba looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan doorashada madaxda maamul goboleedyada isla markaana talaabo kasta looga baahan yahay inay si waajib ah u gutaan sida uu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ka codsaday in talaabo kasta oo la qaadayo ay muhiim ay tahay in la wanaajiyo isla markaana laga shaqeeyo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana uu sheegay in wax waliba ay muhiim u tahay doorashada Soomaaliya isla markaana dhammaanba madaxda maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan arrimaha dalka doorashooyinkooda waxaana uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada dhammaanba ay ku daysadaan in kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka deegaanada Somaliland qaabka wanaagsan ay u dhacday waxaana uu sheegay ra'iisul wasaare Roble in talaabo kasta looga baahan yahay dhammaanba in ay si gaar ah ay kaga shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada si gaar ah waxa uu u codsaday in la soo dhameystiro kursiga xildhibaanada aqalka sare ee Galmudug ka dhiman waxaana uu sheegay inuu aad ula socdo wax waliba iyo talaabo kasta oo la qaadayo inay muhiim ay tahay in kor loo qaado sida uu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta dalka ayaa sidoo kale tilmaamay in uu aad ula socdo qaabka ay wax waliba u soconayaan isla markaana ay kaga warhayaan wax waliba iyo isbedelkooda isla markaana qof waliba looga baahan yahay inay mas'uuliyadda qaadato isla markaana ay ka shaqeyso sidii ay wax waliba ay ku noqon lahaayeen kuwa la daadajiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa loo xil saaray doorashada Soomaaliya iyadoona maanta ay dhacday doorashadii ugu horeysay ee aqalka hoose inkastoo wali aan diyaar garow buuxda aan laga dareemeynin wali madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana ay wali ay ka gaabinayaan inkastoo madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay wali ay ku jiraan xaalado dagaal hase ahaatee waxay arrimaha kala duwan ee hadda doorashooyinka ka bilowday ee Muqdisho ay u muuqanayaan inay horudhac u tahay doorashada aqalka hoose oo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada laga sugayo inay dedejiyaan arrimaha doorashooyinka hase ahaatee Galmudug ayaa waxaa ku dhiman hal kursi oo aqalka sare ah waxaana kursigaasi uu yahay mid aad u culus oo waxaana ku tartamaya labada mas'uul Axmed Ducaale Geyle Xaaf iyo Cabdi Qaydiid inkastoo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo hore u sheegay in kuraasta ku dhiman ee aqalka sare ee maamulka Galmudug uu soo dedeji doono hase ahaatee weli ma muuqato diyaar garow cad ee weli madaxda maamul goboleedyada qaar ay galayaan inkastoo Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo hore u sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu dedejiyo kuraasta aqalka hoose ee taala deegaanada Jubbaland taasi ayaana u muuqanaysa in xaalado kala duwan oo waqtiga kan doorashada Soomaaliya ay gali kasto
ay geli karto tartankana waxa uu noqonayaa mid aad u xoogan. Madaxii ololaha doorashada farmaajo ee sanadkii 2017 ayaa loo doortay xildhibaan kadib markii doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada Tani Muqdisho ayaa waxaa madaxii ololaha doorashada ee loo doortay farmaajo sanadkii 2017 xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee deegaanada Somaliland. sidoo kale waxaa maanta loo doortay kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 237 oo ku guuleystay xildhibaan Biixi Iimaan Ciga oo ahaa madaxii ololaha doorashada madaxweyne farmaajo sanadkii 2016 ilaa 2017. calaamad su'aal siyaasadeed ee la saaray ka sukow doorashada golaha shacabka ee bilaabatay haddana waxaa la qarin karin qawaamuurka ku xoogan baarlamaanka tobnaad ee wajihi doonaan sanadkan in gebi ahaanba laga taqluusiyo hamigooda siyaasadeed aysan kuraasta xijisan doonin shakhsiyaadkii bedeli lahaana ee mucaaradka iyo maxaafidba ay gebi ahaanba ay diyaarsan yihiin. xitaa laanta fulinta ayaa shaki la gelinaya in gebi ahaanba ay soo baxaan xildhibaano ka tirsan waxaana sidoo kale ay u muuqataa in madaxweyne farmaajo uu marka la eego ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ee daqiiqad kadib waraaqad taaniyada labada xildhibaan ah ay u kala direen. haddana waxaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo saxaafadda mar uun la hadlay ayaa dib waxa uu sheegay inuu u mahad celinayo dhammaan xildhibaanada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta deegaanada Somaliland. tani ayaa u muuqanaysa in doorashada Soomaaliya farmaajo waqtigan uu ku gacan sareeyo maadaama ilaa hadda kuraasta deegaanada Somaliland laga soo doorto ay yihiin kuwo aad ugu agdhow taasi oo la micno ah in waji kale ay doorashada Soomaaliya ay yeelanayso. doorashada Soomaaliya ayaa hadda waxay u muuqataa in waqtiga kan waji kale yeelanayso maadaama Biixi iyo sidoo kale Mahdi Guuleed ay soo baxeen. tanina waxay la mid noqon doontaa xaaladaha kale ee mar kale ee doorashada Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta dalka ayaa horey waxa uu sheegay in cadaaladda qof walba ay heli doonto isla markaana kuraasta golaha shacabka ay yihiin kuwa aad ugu diyaar garoobay waqtigan. inkastoo hadda ay jiraan eedeymo kala duwan oo loo jeedinayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo si gaar ah loo sheegay inay garab siinayeen Mahdi Maxamed Guleed Qadar taasi oo la micno ah in wax waliba ay isbedeli karaan. doorashada Soomaaliya ayaa waqtigan waxay u muuqanaysaa mid aad u cakiran iyadoona tartamada kala duwan ee la galaya ay u muuqanayaan kuwa guuleysanaya shakhsiyaadka taageersan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. sidoo kale wararka ka imaanaya qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug ayaa waxay sheegayaan in hadda lagu soo dooran doono halkaasi shakhsiyaad taageersan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoona laga yaabo in Farmaajo uu mar kale u noqdo madaxweynaha dalka. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxay maanta gaareen magaalada Dhuusamareeb. waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka Galmudug gaaray wafdi saraakiil oo hogaaminaya taliyaha guutada 6aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Aadan Abshir Nuur. garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waxaa wafdiga ku soo dhaweeyay taliyaha saldhigga booliska Dhuusamareeb saraakiisha ciidanka kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya safarka maanta Dhuusamareeb uu ku tagay taliyaha guutada 6aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Aadan Abshir Nuur balse waxaa ku soo aadaya xilli Galmudug ay dagaal adag kala kulantay xoogaga ahlu sunna. taliyaha guutada 6aad ee qaybta 6aad ciidanka xoogga dalka Generaal Aadan Abshir Nuur waxaa la filanayaa in uu kulan la qaato madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada. magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka iyadoona oo amnigooda si weyn loo adkeeyay. haddana doorashada Soomaaliya ayaa waxay tahay mid tartankeeda aad u xoogan iyadoona qof walba ay la socoto xaaladaha kala duwan ee doorashada Soomaaliya waqtigan ay marayso iyadoona mas'uul waliba uu aad u doonayo inuu isbedel doorasho uu sameeyo. hase ahaatee waxaa lagu soo waramayaa in ay arrimaha isbedelka doorashooyinka ay noqon karaan kuwa xaalado kale geli kara. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu mar waliba diyaar u yahay inuu ka hortago shakhsiyaadka falalka amni darro ka geysanaya qaybo ka mid ah deegaanadaasi.
muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay inuusan maamulkiisa diyaar u ahayn inay dhibaatooyin ay ka dhacaan qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi, waxaana uu sheegay in tallaabo kasta uu ka warqabo islamarkaana uu si gaar ah wax waliba uga hortegi doono sida uu sheegay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi. muuse biixi ayaa waxa uu tilmaamay in rajada ugu weyn uu leeyahay ay tahay inuu wax waliba ka hortago xaalad kasta oo jirtana ay noqoto mid uu si weyn oo kaga fogaanayo dhibaatooyin kala duwan ka dhaca qeybo ka mid ah deegaanadaasi. guud ahaan warkii oo aad ka daawanayseen saaxiibayaal waa naga inta janaalkeena xogta dalka. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar oo like share garee commentigaagana waa noo muhiim.